looga hadlayo really wax badan ka faa'iido horta marka hore waxa ogaa inuu gudniin jiro laakiin ma ogeen wax waran uma heen gudniin kala duwan inuu jiro soo maanta waxa rabaa aqoonta inta ka faa'iido iyo waxyaabaha aan ogeen inta ka ogaad ina idinkana idin la wadaago soo waxa ku hormaraya kan qaybtan waa qaybta maxalla xubinta taranka ee dumarka inta aan la gudin oo aan la taabanin oo gabadhiisa ku dhalatay waa u jeedin wax walba inay meel walba iska leeyihiin wax aan ka jirneen laakiin waxa rabaa inaan ku hormaro qaybta oo number 1 ah sunnada ah Soomaalida u naqaano qaybtan oo u jeedin waa xubinta taranka sideeda gabadha ugu taasha laakiin qaybta kore laga gooyo oo la dhahayo oo sunnada maxalla ay soo sheeg laakiin xubinta taranka geesida dhan laga taabanin tan saddexaad aan rabaa inaan ka hadlo waxay tahay waa u jeedin gabadha qaybta xubinta taranka dhan waa laga gooyay meelaha dhan kaliya waxaa loo rabaa meesha ka kaadan lahayd ama dhiigga caadada ugu soo bixi lahaa qaybtan waxaa la qaybta labaad waxaa rabaa inaan ka hadlo qaybta saddexaad oo u jeedin oo marka qaar la jaro marka qaar la jaro laakiin la isku soo tolo geeska gees xubinta oo gabadha xubinta taranka ee gabadha ilaa u jeedin qaybtan waa qaybta kore xubinta sida loo soo tolaa ilaa hoos lagu keenay meesha yar dulalka sira loo reebaa oo inay ka kaadisa la rabo oo inay maxallahaay dhiigga caadi ka soo baxal rabo maanta nin guursadan oo ugu galmoonaay qaybtan waa qaybta actually gabdhaha markuu dhiig caadi ku dhacay dhiigga kama soo bixi karo waayo meesha dhiigga ka soo baxay waa laga xiray maxallahaay is sheeg soo saartay dhiig markuu ka soo baxo wuxuu ku markaan intuu isku aruursanaya oo gabadha infection ay ku dareemayso xanuun badan marayso isla sidoo kale markay cunug dhaleysay iyada dhibaatooyin badan maraysa markuu dhiig ku dhacayo iyo markay galmo sameynaysan sidoo kale taas macnaheedu ma qaybaha kale gudniinka oo idin tusiyay inaysan xanuunkaas la marin gudniin sidaas banaanba xanuunka isku siya loo maraa laakiin qaybtan waa qaybta ugu daran oo gabadh meel walba oo laga soo xirxiray waxaa rabaa inaan iidan sidoo kale ka hadlo dadka qaar maqaarkooda infection oo leeyahay skinka waxna ma dul qaadan karaa tusaale kale markii dhig lagu diro dadka qaar dhagaa way ka fashfashaan dhagahana hore dadka qaar hore uga reestaan gabdhaha qaar markii la gudo oo gudniinka maxallaha loo geesto maqaarkooda waxa laga yaabaa inay noocaas oo yaasoo marka meesha ka reesan lahayd qaybta xubinta taranka maraysanayso maqaar weyn ka soo baxa infection ay ka qaadaysa qaybta xubinta maxallaha ka daboolay tan iidan dhibaatadeeda leedahay hadii gabadh aysan caafimaad haysan ama dhakhtar ka caawiyo ama qaliin dib loogu sameeyay waxay dhibaato weyn u geysanaysaa gabadha mustaqbalkeeda maxallaha isha mar walba dhibaato maqaar cusub mar walba ka soo baxa xitaa hadii gudniin qaliin lagu sameeyo wali uu maqaarka banaan ku soo baxay waxaa rabaa qaybtan labadan qayb oo kale inaan ka hadlo marka qaar gabdhaha markii la gudo waxaa laga yaabaa ninkeeda inuu banaan ku soo baxo really maxallaha is sheeg hadii gudniinka loo geysto geedka banaan ku soo baxo nin markay galmo sameynayso kale ama gabadh la guursana ninku waa inuu meesha geedkaas maxallaha uu ka dul baxaa iyadoo xanuun weyn gabadha u geysanayso dhibaatana u geysanayso mustaqbalkeeda isla qaybtan waa isla asiga ninkii oo saaid banaanka ugu soo baxay waayo gudniinka maxallaha is sheeg markii la gudo waxa laga yaabaa gabadhiina gudniinka waxay oo dhan ay u geystaan oo ninkeeda banaanka ugu soo baxo soo marka waxaa rabaa in hal mar waa kana gabadh haddaan la gudin oon la taaban cunug markuu ka soo baxaayo wax in la jaro uma baahno in la kala maxallahaye oo la kala gooyo uma baahno justice sideeda ugu soo baxa cunug si caafimaad qabto laakiinse waxaa rabaa inaa ila aragtaan qaybtan waa gabadha la guday markay cunug dhaleys dhibka marayso intaa laga jaraay intaa laga jaraay intaa laga jaraay intaa laga jaraay sidoo kale ilaa koraa la jaraay waxaasoo dhiigaa kasoo daadana cunugina dhib is xariira looga soo bixinaa marka gudniinka waxaanaan wadanka ugu horeeya ee adduunka maxallaha 90% ka badan gabdhaheena Soomaalida guda waxaana marka hooyooyinkan Soomaaliyeed inaan weydiiyo hooyo adoo xanuunka maray oo dhibkan maray oo markaa ay dhaleysay ama hooyo walba cunug dhaleysay saan lagu jirjiray aniga maxaa ii marsiinaysaa hooyo maxaa dhibka adiga martay oo gudniinkiina ku martay habeenka badrijintaadana martay caadadaana ku martay maxaa gabdhaada u marsiinaysaa maxaa hooyo adoo nin u qancinaysid oo gabadha hadii la guursado ninkeeda waa inay bikro u ahaataa ka fikiraysid maxaa saan iigu xirxiraysaa maxaa caafimaadkayga hooyo iyo mustaqbalkayga ugu saameynaysa adoo nin farxad gelinaysid waxaa rabaa dhaqamada qaar ee xun ee dumarka saameynta u yeesho badanaa qaarkood dumarkay ka dhacaan hooyooyinka u sababay ma jiro mana arkin aabbo Soomaaliyeed oo gabadhiisa in gudu u ordahay hooyo adiga oo dhibka gudniinka ka martay maxaa aniga ii marsiinaysaa adoo nin qancin sababta nin qancin la qancinaayeen maxallaha is sheeg ii toltolaya oo mustaqbalkayga oo dhan saameyn loogu yeelanayo soo had adaan ku rabaa hooyo Soomaaliyeed adoo gudniinka ina waxaas oo dhib ku marsiiyay
sidee ku maxaa qalbigaaga dameerkaada ku siinayna gabadhaada u marsiisan maxaa nimanka Soomaaliyeed iyagana waxaa raba nala ololay oo na garab istaaga waayo hooyooyinku waxay aaminsan yihiin haddii gabadhooda la gudin inaysan gabadhooda la guursanin ama gabadhooda inaysan sharaf yeelanin ama gabadhooda in loo arkayo in waxaad dhan maxaa la yeesay waxba ahayn soo waxaa rabnaa ragga Soomaaliyeed iyaga naftirkooda inay nagala qayb qaataan inay u sheegaan hooyooyinka Soomaaliyeed inaysan rabin iyaga naftirkooda in gabdhaha Soomaaliyeed la gudo waayo gudniinka